aad iyo aad runtii uga mahadnaqaya isla markaana aan bogaadinayaa shacbweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee ku dhaqan wadanka UK shalay runtii isugu soo baxay ee muujiyay qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland si ay u taageersan yihiin iyo ictiraafka la filayo dhawaan iyo heshiiska dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland runtii aad iyo aad baad u sharafteen qarankiini calankiini baa kor u qaadeen waxaad muujiseen wadaniyad waana idinku dhiirigelinayaa waana idinku bogaadinaynaa waxaan sidoo kale markaa wadamadii qurbo joog inoo joogaan ee caalamka sidaas ilagan ka rajeynaa kuwii hore u sameeyay waan u mahadnaqaynaa kuwa kalena inay soo baxida noocaas sameeyaan aan runtii ku dhiirigelinaa Sweden baa hore u sameysay oon doonaa mar labaad inay mid kale kii hore ka weyn sameeyaan Mareykanka wadamada kale Yurub kuwa Carabta iyo wadamada Afrika iyo Australia ba saas ilaag baan soo jeednaa waxaan runtii leenahay arrintan waa arrin guulno ah ictiraafkeena waynu ku faanaynaa waynu dhiirigelinaa insha Allah taala maal dhowna inagoo calankeenu ka babanay qaramada midoobay ayaan arki doonaa waxaan kaloo jecel runtii halkan uga mahadnaqo xildhibaan Gavin Williamson oo isagu shalay kala soo qayb galay barnaamijkii reer Somaliland ee London aad iyo aad baan mahadsantahay waan ku leeyahay thank you so much sidoo kale xildhibaanada kale ee wadamada caalamka ka tirsanayna taageero qadiyadeena kuwa House of Lordska London iyo UK iyo wadamada kale oo dhan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin abaal bay u hayaan reer Somaliland waana runtii bogaadinaynaa waana ku mahadsan yihiin